ده جامعة كسر بحي جامعة ده ما هنا PhD قاعدين موقت هذا PhD ويتا PhD لغو شيغاyo ma taqaanaa practical PhD ga wixii baan rabaa inaan iska saaro meesha nan ka ahayd baan waayay nan هذا meesha بيلا أها nan meesha hadda indhaha iga biriqle laakiin way isaga joogaya mid indhaha biriq iga siinaya baan u jeedaa aniga waxaan kuu sheegayaa haddii ilmaha in isaga dhib haysta la fahmo waa la wada noolaanayaa waana laga gudbayaa marka hore waxaa adag laakiin canugan siduu u fiicnaa oo u socdo u baari waaba hal mar la helaya ama suuqa ha galo oo ama sariirta ha ku aruuro ama cunto ha ku waasho guriga ha ku aruuro habeenkii waxaa erayadaada ka mid ahaa hooyo kaala adiga wax cun intaan nidhaahno albaabka igu soo tuuri jirta wiil adiga aa dhashaa ka hadlaysa adiga markaas aniga tabtaasaan ku jiro 17 jir ahaa waliba markaas ma fahmaysaa sanadkaas 17 galay albaabka wuu nagu soo tuuraa mid kale la jiifto nalka iguma shidi kartid ma yeeli waxaan hooyo qolka dhan uga soo bax ma fahmaysaa markii aan fahmay aan dhageystay sababtoo ah qof waliba ma ogta dadka qof wada perfectiya ma jira adduunkan waxba ma aragtay ilmaha sidoo u fiican yahay hal mar isbedelaya hormoonkiisa aniga hadda 3 baa isaga ka dambeysay inkastoo wali hadda mid xoogaa sii ma aragtay yar yahay wali laakiin haddana waxaan ogaadayba khaladkaba ilmaha ma ahe waa waalidka ma fahmaysaa sida loola dhaqmo naga maqan anaga sida loola dhaqmo alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka baan ku weydiinayaa asmi khayr allah ku siiyo feedback-gaaga iyo maaragtay inaad maaragtay wixii aad ka faa'iiday barnaamijyada aad nala qaybsatay aad baan ugu faraxsanahay barnaamijyada Allah ka dhigo inaad dadkayga ii badbaadisaan kuu sheega ilaahay ii badbaadiya laakiin fikradaada aan aniga wiilasheeda inaan ku wada noolaano ee maaragtay ii kasabtaan kuu sheega إلهي سبحانه وتعالى كون بدبادي أنا إلهي تقبل إذا كاسو كوبع السهر واكو السلامة سمية والسلامة أنت حبيبتي justice لا نقود دقة عدالة يا صدقوا وادوهي هورتا مر هورا يوغو كادب فيسبوكا تيك توك مكوغو أركين عاوان كو أركي waa ku jirtaa mar walba u maleynaa laakiin anaan ku arkin aad uma soo galgala laakiin waa soo galaa aad uma soo galgalo xanuuno badan ba iga ka dambeeyo waan xanuunsaday marka alxamdulillah hadda waan fiicnahay sidoo hore waan ka fiicnahay ilaahay ku caafiyo kulligeen waa la xanuunsanaa waa laga soo dhawow waxaan ka hadlaynaa topiga ay ka dabageeyay وحواي ما محي سببت وعليكم السلام حليب سلمى وحواي توبق وحواي تينيجر محي وارد كودن عبيه ها تاس wax badan ayaan idinkaga kordhin karaa inta aan aniga ka ogahay maadaama aan soo koriyo teenage oo maanta cunuga igu yar oo teenage yahay kuwiina ay ka baxeen oo maanta maaragtay ilaahay uga gargaaray teenage-nimo oo noloshooda matuur noqdeen shaqaystaan alxamdulillah dantooda raacdeen jaamacado dhameeyeen laakiin runtii waxyaalo badan oo annaga waxaa jiro aan xambaarsannahay oo aad ila ogtihiin ay ka mid tahay dhaqankiina lagu soo koriyey oo background-keenii annaga aan ku soo kornay iyo habkiina loo soo koriyey iyo habka caruurta waddankan loo koriyo ma aha mid isku mid ah ama isku meel geli karta marka ma sii wadaa oo ma lay dhegeysanaa waxaan gabdhaha kalena waa la qaybsanaynaa shukri iyo asma ayaguna adigana khayr allah ku sii waabadwadaysa waxa waaye waxaan hadda saaraynaa foxka teenagerku maxay waalidiin badan oo teenager haysata iyo adinkeen annaka laftirkeena teenagerka waxaan ka hadlaynaa teenagerka hadda 10 sano markii ilmihii hadda adduunku isbedelay 10 ilaa iyo adiga mataqaanaa ilaa xataa 25 waxay dhaheen intay gaarayaan qaar baa xataa aan deganayn oo maaragtay weli rarnaantii ku jira ama qaar baaba gadaal ka baaluqa marka teenagerka waa 10 buu ka bilaabanayaa hadda awal 12 13 baa la dhihi jiray laakiin hadda 10 buu ka bilowday
اه horta sababo badan ayay waalidka u necab yihiin oo keenaysa inay horta isla jaan qaadaan waa mid fiican oo aad adigii cunugii faham weyn idin dhex yaallo bilowgiisa nolosha oo aad tahay qof adiga hoggaankiisa hadla isna uu yahay mid ku maqla horta taas waa kow oo waa inaad adigii aad tahay qof sida isaga oo mar walba uu ka tala qaato uu dhagaysto miiska fadhiisoo kale cuntada cun waxbaro timekaagii waxa waaye kan timekii waxa waaye outka timekii jiifka timekii kan waa inay horta xiriir weyn uu dhexdiina yaallo labo haddii xiriirku meeshuu ka baxo oo ayna hooyada iyo cunuga connection fiican oo communicationa oo dhan kastaa aysan jirin culays badanaa soo dhexgalaya wiilkii teenage-ka ahaa iyo waalidkii wiilka teenage-ka ah wiil iyo gabar baa kala reebi wiil iyo gabarba haa yani wiil iyo gabarba runtii haddana caruur waxaa jirta ayagana xanuunsan la soco oo cuduradan marka hadlayna caruurta xanuun maaha xanuun lama dhehe conditions waaye caruurta qofkii markuu xanuunsan yahay dhakhtar micnaha xanuunka anaa saas ku dhahayo afkayga laakiin marka sheegayna conditionist condition qofkii le overall teenagerka reasonka ay waalidka ku neceb yihiin baan rabnaa in la fahmo ani kolley waxaan waxyaalo badan oo khibrad ku leeyahay waxaa ka mida in ilmihii waxyaalaha uu jecel yahay oo waqtiyada teenage-ka waxaa ka mida inuu sufficienty xagga dhaqaalaha ka yahay xagga yacni uu waxyaalaha uu u baahan yahay uu ka heli karo waalidka sida yacni qarashka markuu rabo inuu raashin gooniyo cuno markuu maaragtay take away rabo markuu game rabo markuu waxyaalo isaga u qaasa uu rabo kobo isaga u qaasa dhar u qaasa qurxintiisa jeebkiisa dhaqaalihiisa taasna way keenaysaa haddii hooyada aysan ahayn hooyo ku baraarugsan aniga taasna waan aaminsanahay maya hadda waa wadi kartiin yani waa idinkaga baxa oo idinkaa idin siinaa laakiin aniga waxyaalaha aad hadda habkaa u wadiin horta waa inaan fahmo kabacdiyaan maaragtay idinku darsanaa laakiin waxyaalo badan ayaa hadda bilowda programka waa mahadsan tahay fikirkaaga waa soo dhaweyneynaa haye yaa ku xiga aniga maskax koris abaayo aniga ereyga oo dhaqaalaha sahra la yidhaha sahro haa aniga magaca oo dhaqaalaha xagga dhaqaalaha ani ilama aha walaal hadaba gelin maya waa fikradii calashaan kama marno ilmaha kama marno dhaqaalaha laakiin ilmaha in uu isla jaan qaadaan uu ku maqlo waxaan ka wada waa isla fikradii dhaqaalaha kama marna laakiin ilmaha